أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. maanta cashirkeenna waa maaragtay cashirkii 12aad haddana qaldaneen. wuu ka yara duwan yahay maaragtay kuwii hore, xoogaa korbaan maaragtay u kacayna u soconayna insha allah. akhris oo kale aan gelina maaragtay kelimado maaragtay maanta xooga waxaan saaraynaa maaragtay cashirka wuxuu laba xarakooyinku waa dhammaynay, laakiin labadan u ka yara duwan yihiin. marka cashirka wuxuu ku kooban yahay labada xarako ayuu ku kooban yahay. mid waa sukuun, af carabiga sukuun baa lagu yidhaahdaa, soomaaliga waxaa lagu yidhaahdaa reebid. waa kana hadda meeshaan farta saaraya waa round, daa'ira oo kale saas u dholegsan yahay, zero oo kale ama o. xaraf korkiisa hadda sin korkiisu saaran yahay waa midkaasaan baranaynaa. dhawaaq ma laha way siduu yahay maaragtay. carabiga wuxuu ku fiican yahay sida loo qora loo akhriya. ingiriiska camal maaha. ingiriiska wax la qoraya maana wax kale la akhrinayo sometimes. okay, midda koowaad waa taas. midda labaad waa maaragtay shadda. waa qaybtan labaad aan ku baranaynaa. tan hore waxa weeye sukuun, qaybtan labaad waxa waaye waa fatxada oo kordhowda hore usoo baranay, hoosteeda waxaa ku taalo number 3 kor u jeeda camal sidaa ah, dhag dhag number 3 camal ah. shaddaa la yidhahdaa af carabiga. macnaheeda waxa waaye maaragtay xarafkaas waa laba xabo laba xabo. marka laba wax intii la qori lahaa haddii ba'da la kor saaro waa laba ba'. let me explain. dub mid waa reeban tahay, da'da waa kor reeban tahay, dub ba'dana waa reeban tahay, sukuun waay. bun mid kale haddana ba' kalaan sheega waa laba ba'. badhun gadaal baan cashir ka soo bilaabay. anyway is okay, sharxaaddaa keentay meeshii munaasibka aan ka galayna maaragtay cashirka. okay, sida caadada ah waxaan xusaa maaragtay webka aan wax ka baranayno waa Madina Arabic. waana soo qori doonaa insha allah. click box samaynaysaa, cashirka tegaysaa, ku ceshan kartaa maaragtay. hadda kelimadana meesha ku qoran miin baa meesha ku yaalla, wuu kor dhaban yahay, ma waaye. okay, siin baa ku xiga, wuu reeban yahay oo sukuun oo la dhahaa mas waaye. mas sukuunka xaraka maaha yacni oo lagu dhawaaqo sida kor dhow, hoos dhow, god ma aha. haddii la kor dhawo masa aan leeyahay, haddii la hoos dhawo masi, haddii god laga dhigo mus baan leeyahay. ma garatay? masu siinka haddaan god ka dhigaamin. okay, ila akhriya. okay, ana wax sahlan ma jiraan, xubayn dadaal man jadda wajada. ninkii dadaala waa helaa. okay, let's go back. mas jiinka hoos dhaban, ji deelkoo godan yahay, dabal damba waa masjidun. waa saas waa masjidun. wax saas ma adka maaha. miimka waa kor dhaban yahay, ma siinka sukuun waaye. sa lama dhigi karo, si lama dhigi karo, su lama dhigi karo, oo ma kor dhowna mana hoos dhowna mana godno. marka sukuunka waa saas, dhawaaq ma laha. mas saasaa leedahay. mas ji waa hoos dhaban tahay jiinka. dun masjidun waa masaajidka.
ها كلمتي ugu horreysay ay noo soo horumariyeen webkan waa masaajid meeshii ilaahay lagu caabudo waxaad u fiican maaragtay ilaahay naga dhigo kuwii ilaahay u sujuudo oraale ka noqdo anyway masjidun كلمته ugu horreysa waa masaajid masjidun okay كلمته ku xigto sida loo horta aan click ku sameeyo si loo akhrinayo مسجد masjidun aniga akhris baan maqlayaa hubina maqlaysaan mar baan arkay video on dubay ma maqlin qofka wuxuu lahaa ka daba dhahoy anikeyga keliya maqasheen at least isku keygaad maqasheen waa ku ceshan kartaan masjidun masjidku waa masjid بيت baytun ba'du waa kor dhaban tahay ya-du waa sukuun ta'du waa dabal god baytun من baytun horta waxaa la dhahaa guriga macnihiisa ma sheegi moogta guriga la dhahaa bayt macnahana waa ina barataa xasuusataa من ayada ingiriiska halkaan ku qoran tahay qofka ingiriis garanaayo moscow masjid waaye house guriga waaye min from waaye from inaan wax sentence sheega ma rabi anagoo xaraf joogo so waa gaarayna insha allah أنف anfun waa sanka nose waxa lagu yidhaahdo ingiriiska anfun alafka waa ka hamsa kor saaran nuun reeban tahay fa'da waa dabalgod casharada hore inaad soo qaataan waa very muhiim u tahay very important maaragtay aadan cashar ka boodin cashar kastana inaad fahamsan tahay haddaad iska soo saalday iska soo boodo ma la qabsan karays hadduu kugu adkaato gadaal u noqo casharada hore soo taala oo soo dhegeyso saa u fahamtay ula socotay waxaan sheegayo okay okay masjidun baytun min anfun masjid waa masaajid baytun waa guri min waa from anf waa sanka waxaan baranay sukuuntaasaa maanta lagu cusub ama reebis wax la dhaho ka duwan tahay saddexda xaraka aan soo baranay kor dhow hoos dhow iyo god ama fatxa kasra tama kan dhawaaq ma laha mas siinka maxaa kor saaran waxma maqasha saas waay baytun min anfun saas waay okay qaybta labaad maanta aan baranay horada ku sheego waa shadda waa tana da'day kor saaran tahay da'dan qiddatun qiddatun waa mukuleesha ama bisada bisada u taqaanid okay qid qaafka da' loogu dhejiyey haddaan kelimad u sheego qaafka hoos dhuwan yahay qid da'na waa reeban tahay haddaa da' kaloo sheegay waa laba da' qiddatun shadda la yidhaahdaa arina oo af soomaali loo dhaho kan sukuunka reeb af soomaaliga oonu aqaanaa shadadan wax soomaali lagu dhaho qofka garanaya oo soo siyaadin karaa falyatafadal aniga carabi waxaan ku bartay caraba ay bartay so af carabi ilaan ku bartay soomaali laguma shaqeyn so I don't know shadadan wax lagu dhaho maaragtay soomaali laakiin macnahaan waa laba da waa maaragtay khiddatun okay laba god waa bisadan mukuleesh sidaan usoo sheegay بط baddun I don't know af soomaali wax lagu dhaho kan ingiriis ahaan duck baa la dhahaa duck google-ka aad d for delta uniform charlie kilo duck ku qor oo kusoo baxa waa nooc mal shibar oo weyn bolonboolo aan lahaa I think bolonboolo inaan naqano xamar bolonboolo aan naqano aan jeclahay دب dubbun oo laba ba aniga shadahaas baa maanta casharkaygu yahay inaan xoog saaro
macnahana waa faa'iido hadaa barato. batun badun waa laba da. dubbun ila dhegeysta. dubbun waa laba ba. da dub iyo bun saas waay. dubbun dubbun beena maqlaysa codkiisa waa laba ba. dubbun dub kaliya ma dhihin, dub wuu reebay mid kale bun wuu ka dhigay. okay, tanna fiiri. batun bad waa Soomaaliga xataa waa laba ka xaraf oo isku mid ah laga dhigo saas. I think Soomaaliga loo masaas ma xasuusto. Anyway, casharka maanta waa intaas akhriskan baranaynaa. waxaan soo baranay maanta casharkeena uu yahay hore waxaan soo dhiganay maaragtay alifbeetada aan soo dhiganay 8 inay kooban tahay. waxaan soo dhiganay shaqal gaab a i o. waxaan soo dhiganay shaqal dheer a i o alif iyo waxa la socdo iyo ya iyo wow. xarafo aan maaragtay wax lagu darin oo 4 xabo ah sidii alif iyo deel iyo daal iyo ra iyo za iyo wow. wax looma daro waa la dhinac dhigaa. then hadda waxaan soo gudubnay sukuun reebida Soomaaliga iyo shadda hal xaraf oo 2 xabo ah. I don't know shadda wax Soomaaliga oo dhaho adinka ay sheegi doonaan. casharkeena intaas ku yahay. waxay su'aalo waad maaragtay soo weydiin kartaan. youtube-kii waa lagu yara wan haddaad tagtaan comment oo qor kartaan weydiin kartaan. insha Allah idinku soo jawaabaya. casharkeena maanta intaa idinku egyahay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت عين وبحياة إلهي نوفر هذه كتب سيحوا بسنة عربية كقصانين حتى تفهموا شيء معناها وحاوي ما أدى فهمين كوي هرا كذا إنه صبر كوي هرا مركز سيدا هرا الشيء هو بيسك وحان خلاص كسب الله ألف وحمالا كسب الله وصعوننا إن شاء الله مركز وبالله التوفيق. السلام عليكم.